الله الرحمن الرحيم انت على كودر استاجين حالك مقالة بينبو لبعتني أفرت ساعات إصاص عطاه سيدابون نقندورا إذا ماذا حوج الدلك الصومالية أسكسي بالعرنا يا وقت مقال كداوني سفري سمك سما سنة مقالة بينبو همبليو كلي اللعبة وعاو هالكن عن قدر يو ويل كان أبتيجو وهاي لفت جرين iyo Etoobiyaanki oo magaalada Baydhabo isaga baxay isaga lafkiisa xaaskiisa caruurtiisa magaalada Baydhabo kala baxay inta aan qodobkaas waa qodobkayga u horeeyo qodob xasaasi ah si qoto dheer ugu tiqtiqsan qodobkayga labaad waxa weeye ragga uu soo hambaliyay ujeedada ugu soo hambaliyay xaaba daarood sababta ay u soo hambaliyay oo ay ugu soo hambaliyay ninka wixii la okeeto ee sharci darrada ku dhaqmay ninkan waxaan Axmed Madoobana samayn mulaaxana samayn dhaqan xumadaas 3 saacadood doorasho ku qabsaday sababta ugu hambaliyeen ujeedada salka ku hayso ku dul istaagay xaabaha wiil lafirkooda oo halka iyaga attention ka raadinaya iyaga lafirkooda ku dul istaagay ragga kale ee aan soo hambaliyeen ujeedada ay la maqan yihiin iyo waxay u hambaliyeen laayeen iyagana qodobkaas waa qodobkooda bay waa bugabugeys way inta aan bugabugeeska ku dul istaagay waxaan halka ku dul istaagaya laba saddex iladood Xasan Sheekh iyo Xamza ay leeyihiin saddexda qodob soo baara waa ku arkaysan nimankaas waa leeyihiin kow uma haystaan tanaasulka inuu yahay wax ceeb ah sideedaba tanaasulka inuu yahay wax ceeb ah maba u qabaanba tanaasulka ana u sheegay waa ceeb wey waxa la dhaho tanaasul ma jiro waa laba shay in laga adkaado oo afka ciida lagu daro iyana ninka ragga ah ee sharciga ilaalin waayay ee dastuurka ilaalin waayay ee qarannimada ummadda Soomaaliyeed ilaalin waayay oo sumcadda ummadda Soomaaliyeed ilaalin waayay inaad ka adkaato iyanu ka adkaado tanaasulku waa ceeb maalin kasta dastuurka kuwii deegaanada dastuurka si loo keeto dhaqan xumada loo keeto ugu waday baa intay magaalada Muqdisho yimaadaan ama waraaqa ku soo qoraya ama kaala fariisanaya dastuur kuwa hadda lafta garan u hambaliyeenaya oo wixii loo keeto sameeyay baa dastuur idin kala hadlay markaas aad u tanaasuli doontaan markaas waxaad kala hadli doontaan danta ummadda Soomaaliyeed baad kala hadli doontaan idinka la idin doortay marka tanaasulka ceeb wey عفسكو وعب سيدا إلهي وحفية بالعالم باتهاي شرعي بالغو دورتي سيستم بالغو دورتي عفسكو وعبوي قف شرعي قرنمada umada Soomaaliyeed ku xad gudbay dambiga uu leeyahay in la maraway dambi waa la sameeynaya qarnimada lagu xad gudbay magaalada Muqdisho la dhex taagaya fil Soomaaliyeed ugu yeeraysan dadka idinka u ogolaanaya markay inay dhileystaan dadka idinka u ogolaanaya inuu qof walba waxa uu rabo inuu sameeyo dalkan way hadii gacan bira ku qaban karin doorasho intaas ka qabataan hadda oo cid asdii kartaa wadanka waa badbaadin kartaa ku wareejiye hadii kale Soomaa qof iyo cod bidan ka noqon karin hadii qof iyo cod waqti uu idin saamix waayo doorashadii lafta gareen qabtay oo kalaad qabanaysaan tii dani qabtay oo kalaad qabanaysaan tii Axmed qabtay oo kalaad qabanaysaan koowi sagaashanka waa loo noqonaya halkan laga baxaya naara soo daacaya iidaay ku dhamaaga Muqdisho hayga imaan soo istaag قسم بآيات الله على أركس أيوة كوا أفك كواي أنا هذا أفكي نقول الله نينكس تأو الصومالي وجو إكره جو لكن إذا إني أنت ناسولين اسكو ضيع إني أبرت أتاجنتي إذا كنا قاقنا اسكو ضيع لكن أنا واحد كبرتي شلع فربضل عمد الصومالي له هيسان وليه الشعب كم أضو هيسان نما كان سياسيين تاع أنا واحد شيء يعني صح كل عشرين نين أم بيش لفت قرين بيش سود كنا كجراي أحمد ريركي سود كنا كجراي ملاح ريركي سود كنا كجراي إذن كنا مجاز ما أنت إيمان سنديق وقلقلي شرع مجرين نظام مجرين أمن مجرين مالك استعل شو بايستي جرع ستة ولا بادي ما أنت ولا قاعد لو كتو قبتين إلا هير عدد كيشلا لو قديسان وريد وعيب يعفس قف عفس عفنكر تاعهم ده مجتو وكلمة السوشيال ميديا أنت السوشيال ميديا دين قابل سن وأقاسم شيء دي وحكومة دينا لما السوشيال ميديا كفشلت حكومة فرماجة حسمين جبتي وزيرك أما مد قبيل كيسو حقوري جري أما مد فاهم الكلام حقوري جري رقبوا حسمين جري سياسة فرنقية بلا عمل كايو أفك حقوق لياشا أيو نعنع لياشا أيو هاري هبين عن عموسينو مالك استحال يو مالك استتاجن ولا قدارن بي حقوري جري أنا صدح بقول ضروري قوري جري إذا كويو ولا إذا كحيستي مركز أكويا ويا حق ضيان اسمه حتى قف وحكي شقيري وحقضية هبكي مصر باوح القوة الري عار هبكي إيشا إن وح هبكي تركيا شري معاه عبد الله فرماتشو مركو سوق بني نيكل له مختار رو وما جاب نبكي سود حق بني وأفك كجراعي
ما إيشك ما محمد ودريد به يو مركو دوسو بريل حبدا كريدي مركا أديكو حبدا ريدانا وأودي هوية يودن هوية كشقين يا حبدا ريدي يو حمزة وليتا أو قشرة أو عي كرسي كاك عصلا أنت حمزة كرسي بناك وتاجن وين كرسي كويس توي يالك موسى وصل لبعتك لو موسى جيسن قرن ما وضع صعيد بو شقينيا وزيرك كواد ويه رئيس نين مدحويني دارود يجوا هيستكسو كعي بعدين رئيس وزاري كويستا مركا سوشيال ميديا هادتك يدين قابلسن وهادتك ولي توي هذا اسك بدل كرتان اسك بدل الرق waxaan aqoonteeda leh oo qawaamiira oo waxaan waa dhamaatay madaxweynaha wuxuu booqday halkaas qolada samata bixinta iyo madaxweynaha wada hadlay waxa war ma waxa loo baahay waxaan runta u sheegay oo afka ka garaca loo baahay marka raadiya kuwa fadhi ku dirirka oo meelaha kaamiradaha taagan loola boqolkooda doolar idinkaga bixi mayso bishii nimayo runta meeshaan caamaa loo sheekeeya shacabkaasaa loo sheekeeya dumar iyo carruur baa loo sheekeeya been waxaan ahayn dhururuq oo lagu dhuraa ma jirto marka midba midku ka been badan yahay mishaar u qor midba midku ka naabsan yahay oo kabii nabiga xaday oo ilaahay iyo rasuulba ka furtay u yeero oo shaqaaleysiyo miidiyaha waxa tira halkaas dadka ka cacayo lacag ku sii kuwan ba soo iga siiya maxay idinkeedu ku gaara marka halkaas social media iska adkeeya ogaada social media haddii aan iska adkayn wallahi baan talaabo qaadi karin adoo madaxweynihii Soomaaliya oo intaas qabtay deynta cafiyay oo iisha al-shabaab la dagaalamay oo Itoobiya baddi ka dhigay oo intaas oo shaalkii qodaya baad adiga Xamzaba wanaag weydeen marka social media la idinka haystay social media rag aqoonta u leh waxaan oo iisha shaqadooda tahay u xil saarta waxaan dul istaagay lafta garan horta oo waxaan baliyana lafta garan waxa la hambaliyaan leh waa la diyaariyay guriga lagu xiri lahaa diyaar gurigii xabsiga lagaaga dhigi lahaa waa diyaar waxaan kugu hambaliyeenayaa in 24 saacadood soo socota muuqaalka xiga inaan ku daari doono heestii waa ku garab taaganahay geesigan dhalayow habar yar abti guuleyso heestii habar yar guuleyso abti guuleysan ku daaray anigu meel kasta gabdhaha daarood iyo wiilasha daaroodna abti guuleyso iyo habar yar guuleyso ku soo qoraya markii lagu xiro sababtu waa maxay ana artaa inaan hawiye ka difaaco hawiye ana iska difaaci waayay sangaduud meel dhow ceel ka qodanaya habeenkii dhan habaar salaatuleel baan ka ilaahu ceelko biyo ka waaya ilaahu isaga taga ilaahu cadaawiyo dhanna ma waa wiilal habar gida waa wiilal sacada waa wiilal reenib caalaadaan ku dhahow heybtooda hoos ku dul istaago anigii baa iska celin la oo ceelkoodii habaaraya hadda waa inaa u jeedo daalimo guriga ceel ka qodanaya baan habaaraya ilaahayow ceelka biyo laga waaya baa taagna markaasaad waxaa artaa inaan kuu hili anuu allahayka allah abti laba qaawan baana isma qaadno adigana cidda kugu dhegan waa tolka aaraare weeye shalayna kursigan doorasho kuma aad heline inta mukhtaar row afka laga garaacay oo ciidanka gorgor loo soo kaxaystay oo haram cad loo soo kaxaystay baa adiga kursiga xoog lagugu keen tabta maanta doorasho qabatay beetu farmaajo qabtay oo meesha kugu saaray marka hadaad ku imaan lahayd rabitaan shacabka koonfur galbeed aaraare maanta ku difaaci lahaayeen ee kuma soo horkaceen iyaguba dadku kuma soo horeeyeen dadka cid kasta ku raadinaysa kuma soo tilmaameen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo hadda magaalada Baydhabo fariisima ka samaystay 24 saacadood soo socota xabadu waa bilaabanaysa ku bishaaraysta nabad la tuugo nabad maaha nabada badan ragga dhadig ba ka dhigta ciidanka howlgalka ku baxay iyo ragga meesha tagaya inta dhiman doonta Allah u naxariisto inta nool inta dhaawacmi doonta Ilaahay ha u boogadhayo waxaatiin ana idin fadwoonay mujaahidiin baatiin qarannimada ummadda Soomaaliyeed badbaadinay Itoobiyaanka uu gabaadka ka dhigan lahaa waa ka cararay oo waa barnaayeen magaaladii iyaga la fooday la cararay waana loo sheegay ka dhaxbaxalay arintan aaraare badooda idama qaado Soomaali badada idama qaado ninkaan waxa uu xunbu sameeyay 3 saacadood doorasho gudoomiye baarlamaan madaxweyne ku xigeen madaxweyne markaas waxa lagu leeyahay sharciga hal la ilaaliyo waa abta aan kugu hambaliyeenay ana xabsiga magaalada Muqdisho aan kugu soo booqan doono insha Allah ta'ala علي حوش باتري قروا هاتوا علي حوش كو وركا كوسو ديبي halkan iga daawanaya saana jawaabtooda sinay علي حوش waa wasiir umada Soomaaliyeed u shaqeeya ciyaar suuq ma saadi cid wax laga qaadi karo jimcaala garow jooga oo hubeysan oo dawladda federaalka lacag ka qaata oo nin Ciise Maxamuud ah oo علي حوش adeer u yahay kaas markaad ka soo adkaataan jimcaale baa علي حوش dhigi kartaan arag garow haymaan علي حوش saan garow rabine ana tembu garow imaan kara maalinta galka ay joogayo علي masaarkii odagii ugaaska halkan ka salaamaya tanade
leel kasta bujoogay sidii loo kitaa mulaaxa ugu farxsana oo u leefleefay habaab u siinay markaata alla adkaayeen marka kuwa warka ku soo dhiibay waa kuwa ku dhii doona hadhow habar yar guuleyso على حوش شقديسو هايستا قديga doorashadu magacaabaya baydhabo doorasho ku qabanaya kismaayo ku qabanaya garow ku qabanaya waa markii adiga laga adkaado qarnimada wadada Soomaaliya cageeda ku istaagaysa in la bariyo ma jirto qof la bariyo oo Soomaaliya oo inta meel soo istaago laga bariyo qarnimada wadada Soomaaliya inuu ilaaliyo ma jirto waaya muuqaalka xigana waxaan kugu ballan qaaday adoo jeebeysan oo magaalada Muqdisho maduur gareeno laga dejinayo bal waxa aniga lacagta iga bixiya tuugsiga waa dhaqankaaga way eelayu dhalay cid lacag ka bixinaysa mare yaa ku adiga wax walba saxiix waa wax walba saxiix qof iyo cod saxiix maanta ma rabo iska tagaysa marka oo laga yeelay taas laga yeela hadii laga yeelo kaasi gabarba ka soo bax 24 saacadood kadib ba adiga ay ku taageeraya oo beenta ku sheegaya baan iswareysan doonaa sabti kuma oo ku ooyay kuma aaro anu abtiga baa ila ku ooyay maahay ku aari maayo runtan ku sheegay waaya waxaan dul istaagaya ragga hambaliyay farmaajo iyo saacid iyaga hay dambeeyaan iyo mulaax oo hambaliyada diiday waxa ay u daran kuwan hawiyaha ah baa ay u daran balafta garay oo bes cod ka heleen awal bes cod ka heleen koonfur galbeed wasoogiyiin oo madaxweynihii markaas meesha la geeyo cidda uu taageersan yahay uu codka siinaya niman xisaabtu u duubantahay ma hambaliyo ilaahay hadda ma soo hambaliyay hambaliyo waa la ajli xasan sheekh maxamuud baa shalay toole jubbaland uu hambaliyay xasan sheekh maxamuud baa talaabada qaaday xasan iyaga ajanda aan xasan sheekh ahayn xaabaha wiyo mara hawiye oo dhan xashiq siyaasadda uga soo horeeyay laakiin nin hawiye maalin al-shabaab ka celiyay hawiye wax taray dadkiis wax taray maanta dadkiis ciidan ka heli kara xataa anagoo daarooda noo dagaalami kara kuma jiro hal nin ku mid kasta guriga wuxuu soo dhigta printer alaa hambaliyo haddii habar halka ku dhashay hambaliyo haddii oday halka ku washa hambaliyo haddii cidka hambaliyo ambaarayn war ninka iska dhiciya oo ninka weerara baa lacag idiin siin oo magaalada Muqdisho qarxiya oo dadkiina dabka geliya baa lacagta Facebook aan ku siinaa anagu يا حباوي مقال كان داواني سان لعقت عنهم محايد كوسين ما فيسبوك هذا كوسين مسينا تدكين صار الله يسمى لعقت هذا كوسين هدونا الرئيس وزراء إذا سينو ما نصعد أنا صار لعقت هذا كوسين إن ضدك بابيسو قرحيسو ديكو مجال مقدسو قلقله نبدي الديدان هدونا الرئيس وزراء كوسين يعقوب أنا قاضي أدان دونا عن كوسين مركان قوليستو تام كوست مع صيغ النبكي حباوي يقول بس حكون حجاك سكيه قد بيه وعنده استاجي حابة دارود نيكي فرماجاها يا سعيد يقع عوا وقرابية نيكي الرقارون طلق الشيخ يقوى نوال من ريحانة نمكان ونيكا وانا لين وكو يقع دلي شري يقع فيريي لفت قريب وآمسية هاي حديه هويا دارود تاين على نيرة هاي وآمسية حدا دو عرنا وحا خطر إنو قبل كقدو عرنا با خطرها أما إثيوبيا وعرّه أدوك فرماتو يا ساعد ولا بنا من ريحانة ولا بنا السداء ويلكاس أبتبي ويهين هدي فستان وشقيسو حلي بانا إنا إيجو هليان بيوجيهين يا سبعش كان خلطمي حلي بانا إنا إيجو هليان بيوجيهين سادرت وهم بريانة لفت قرني كلا ده مركا تاسا وحي كنيسة إنا همبريا صبح ساك أرورتبا إنا همبريا لفت قرنو سي وحي سوقين شرع الدرادة هذا يكام بليين إنه يجا هذا عقبات يكون قريسو وهي سوقين شرع مركز دستور الصومالي لما يسره على الشباب وضع كلا يساره وحيابها صدقنا وما أنت للسمين أيوه نما كان مريحان هذا كرسي كوجو ليستان إنه يجا عن فائدة أنت نما يودي عشان تاي يقولون تاي معه ونما بس وحلقوصه بابا وحلقوصه دعو أجندك لما تشرو لكن لفت قرن أفتويين وحوصاح ولنا إنه يجوا قادنا يعني وانمن أقوي نما كان مريحان يجا واحد ليه وايدين فردا وايد السلام يا حسابته دي كما خلطنا أنا كنا وايد قرنا يا يو رج اسكو قوندا وانا يو إيه ما خلطنا حسابته وصعوا فلان قيوا صح وايد عنده يستاهل ملاحو يسقوا حد كور بهيس وحاجتي ملاحلو سبي ضو وفراد ضدك ولا مرة لفت قريك لفك ساد كور وحيري
inaad Siciid ka barto weeye sida loo soo noqdo markaa qaabku ka bartay dhilaynimadii uu Siciid Cabdulaahi Dani ka bartay oo ahayd qaabka loo soo noqdo baan ku baraya baan kaa baranaya waa taa maanta 3 saacadood buu madaxweyne ku noqday oo aan la ogeyn xataa 3 saacadood buu madaxweyne ku noqday aan la ogeyn waaya isaga dawgan furay in xildhibaano la boobo in dad la soo qorto isaga waa shaqadiisii wey marka maanta hadduu iska dhigo nin aan waxaasoo dhan lug ku lahayn waa beentis waa nahaab ilaahay rasuulba ka furtay wey ilaahay rasuulba nahaab ka furtay weeye farmaajo ayaa isaga ka roon iyo ninka loo saacid og inay ninka xildhibaano ka heleen isaga wuxuu og yahay inuusan xildhibaano koonfur galbeed ka helin buu og yahay koonfur galbeed inuu wax xildhibaano uusan ka helin buu mulaaxa og yahay taasaa waxay keenaysaa inuusan u hambaliyeen marka kaarka loo xoqanaya mulaaxo qayb kama aha waa ninka axmedoobe dabada ku watay wey farmaajona uma uusan hambaliyeen axmed madoobe sababtoo axmedoobe iyo Siciid Cabdulaahi Dani kablalax bay isku yihiin wuu og yahay halkaa kismaayo wax u yaala farmaajo isaga ma malaba niman reexaana wey wax u yaala inaysan jirin waa og yahay marka waa rag iyagii is haysta daarood bay iyagii kala jabiyeen oo maanta kuraasti iska kiciyeen oo xaar isku ag fadhiyaan raxaweyn lafta gareen kuraas u soo boobay bay isugu xanaaqsan yihiin bal kuwaasaa marka annaga siyaasiyiinno ah ilaahay baa kugu dhaariyey maalin kasta waxay qorayaan warbaahin ahaan u haystaan xashiq oo mooshin laga keenay ra-iisul wasaare xamse cabdibarre mooshin laga keenay ruufiyaannimo anaa xamar tegey oo isku soo diray saas ku leeyahay anaa intaa xamar tegey baan hawiye isku soo diray saasuu aaminsan yahay marka wuxuu u sheekeynaya kuwii marka xamar tegey mujada saa u kala furfuray oo maxaa kala furfurtay waa ka ninkii isagoo ciidan iyo dabaabaad wata magaalada kismaayo magaalada baydhabo duulaanka ku ah oo hadda lafta gareen soo qabanaya maxaa isku soo dirtay ma odawaa oo doonta ka degay oo iyo sambalowsha oo oolba uu ogaayo xaar ka wareeyo xogahayaal uu ka dhigtay baad isku soo dirtay ciddii karta male marka wuxuu isu qabaa nin libin weyn keenay